habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin hal sano ayaa maanta laga jooga markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaanu eegi doonaa wixii uu qabsoomay iyo caqabadaha ugu weyn ee haysta. maanta hadda guriga ka soo baxday maxaa ku noqon doontaa adoo dhees ama mararka qaar noqonaysaa tan iyo maalinta uu qarax soo baxay ilaa hadda waxaan dareennaa welwel iyo xanuun. isqabqabsi badan oo siyaasadeed kadib ha bilowdaan ciyaaraha waxaanu eegi doonaa ciyaaraha olombikada ee qaboobaha oo berito jimcaha ka bilaabanaya Kuuriyada Koonfureed. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa maanta ay u tahay sanad tan iyo markii uu ku guuleystay doorasho taariikhi ahayd. Haddaba waxaanu idiin haynaa warbixino aanu ku eegayno marxaladihii soo wajahay dowladdiisa iyo xilligii uu Farmaajo xukunka la wareegay. balse marka hore aynu dib u eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee siyaasadda Soomaaliya sanadkii uu madaxweyne Farmaajo hoggaanka waddanka hayay. Waa kan Qalib Xasan Baaruud. 8 bishii February sanadkii 2017 baarlamaanka Soomaaliya ayaa doorasho dadban ku doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo cod aqlabiyada kaga guuleystay madaxweynihii hore. 19 February madaxweyne Farmaajo waxa uu ballan qaaday in 2 sano gudahood lagu soo afjari doono colaadda raagtay iyo weerarada ururka Al-Shabaab. isla bisha madaxweynuhu waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre oo helay kalsoonida baarlamaanka xukuumadna soo dhisay. 7 Juun xagga siyaasadda dibadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadda Khaliijka, balse qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay go'aanka dowladda oo taageeray isbahaysiga Khaliijka. 27 August dowladda Soomaaliya waxay Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa jabhadda ONLF ee dagaalka kula jirta Itoobiya. falkaasi waxa uu noqday mid cadho ku abuura Soomaali badan. sidaa daraaddeed meelo badan oo Soomaaliya ka mida waxaa ka dhacay bannaanbaxyo. dowladduna waxay sheegtay inay fulinaysay heshiis ay dowladdii ka horraysay la gashay Itoobiya. 14 Oktoobar waxaa isgoyska Soobe ka dhacay qarax argagixiso kii ugu weynaa Afrika. waxaa waddo ciriiri ah lagu qarxiyey gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. 512 qof ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan. cidima ay sheegeen qaraxaas, balse dowladdu waxay ku eedaysay ururka Al-Shabaab. bilowgii sanadka madaxweyne Farmaajo waxa uu socdaal ku maray deegaano ka mid ah Puntland iyo Galmudug, waxaana sidii markii la doortay oo kale loo soo dhoweeyey si kal iyo laab ah. madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay mashruucyo badan, balse waxay su'aashu ka taagan tahay sida ay u hirgeli doonaan. waana su'aal ka taagan dhammaan ballanqaadyadiisii iyo guud ahaanba maamulkiisa. haddaba arrinta ugu weyn ee hortaala dowladda madaxweyne Farmaajo waa amniga. 5 bilood ka hor ayay ahayd markii gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen in ka badan 500 qof. waa weerarkii ugu dhimashada badnaa abid Soomaaliya. haddaba wariyaha BBC-da Cali Nuur ayaa eegaya xaaladda amniga ee hadda taagan. cabdifitaax axmed barkhadle waxa uu ka badbaaday qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe. nabarrada ku yaalla wejigiisa ayaa muujinaya inta ay la eg tahay dhibaatada gaartay. barkhadle saaxiibo badan oo uu lahaa ayuu ku waayey qaraxa. waddadaan ayaan sii maray, halkaana laami uga soo dhacay. waxaan arkay meyd badan oo dhulka yaallo, dhaawacyo badan oo aniga iga daran, nin lugtu go'an tahay, nin isheeg qof oo laba lugood ay jajaban yihiin, qof iska yaallo oo nuunuuxsanaayo oo dhimirkiisa aan hadda aan qiyaasi karin. walow aanan markaas wax si fiican aanan wax u qiyaasi karin oo indhaha dhiigii ka socod darteed aanan si fiican wax u arkaynin. haddana waxaan dareemayay waxa igu dhacay wax ka badan meesha inay ka dhaceen. aniga waxay soo gaar wax ka badan ummad inay gaareen. maanta inta badan dhismooyinka dib ayaa loo dhisay ama dhismo ayaaba ku socda.
waxayna arrinkaasi muujinaysaa ad adayga dadka reer muqdisho ay ka dhaxleen mushkiladahan soo noqnoqday cidna ma sheegan mas'uuliyadda qaraxa walow xukuumadda soomaaliya ay ku eedaysay al-shabaab madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wakhti yar kadib markii la doortay waxa uu ballan qaaday in uu al-shabaab ku soo afjari doono muddo 2 sano gudahood ah balse dadka indha-indheeya arrimaha ammaanka ayaa aaminsan in muddadaasi aysan ahayn mid ku filan dawladdu xoog ma qabto oo ay gees intay ka martay gees kale uga baxdo dib u heshiidna ma samaynayso oo dadka kalsooni kama kasbanayso arrinkaas marka wuxuu keenaa waxaan ka wadaa macnaha nabadgelyada keliya maahane dib u dhiska dalkan Soomaaliya oo wadan dumay ah qaabka la rabo in loo dhisaabo qaldanba ballanqaadyadii madaxweyne farmaajo uu sameeyey waxaa ugu weyneed in uu wax ka qabanayo xaaladda ammaanka maanta oo ay ka soo wareegatay muddo sanad ah ma muuqato isbeddel weyn oo dhankaasi laga sameeyey iyada oo madaxtooyada Soomaaliyana laga sugayo in ay soo magacaawdo xilalka taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda oo bannaan in ka badan muddo 3 bilood ah ciidamada isku dhafka ah ee loo bixiyey ciidamada xasilinta caasimadda ayaa ku howlan sidii ay uga hortagi lahaayeen qaraxyada al-shabaab dadka reer muqdishona waxa ay rajaynayaan in mar uun ammaan ay noqon doonto magaaladooda cali nuur salaad BBC muqdisho haddaba telefishinka BBC Soomaali waxa uu la hadlay qaar ka mid ah daawadayaasha magaalada muqdisho oo uu weydiiyey fikradda ay ka qabaan dowladda waana kuwan macnaheedu isbedel waxa waaye attitude-kii afkaartii iyo waxaan qabi jiray hore iyo hadda midka aan qabo aad bay u kala duwan yihiin marka hore wax rajo oo muuqatay saadaasha marka wax saadaalnay waxaan jiray Soomaaliya 30 sano kadib 40 sano kadib 50 sano kadib yaa laga yaabaa inay nabad iyo xasilooni hesho hadda laakiin fikirkii macnaheedu waxa uu isbedelay oo waxa ay muuqataba يعني ما دهان كما هلا معناه وهان وحي موقتين الدولة صح أو نظام سام إن الحلي وأنا كفر عسنا رجيء وحنا صوت السهيدي لا صباح كسر صوت صار ما أنت تقولي كسب واحد محاكون نقول أنت هذا ليس أمر كخار نقول نسا تاني ما أنت وقرح صوبع إلا هاد وحنا درنا ولو اللي حنون وصوبت أنت نجم خنا كوبدن مركز تاسع نقدر أول نفسدن وسبالين أو أمان ساسا سلو عبسنا لكن دبعتها سكلت مركز أرنا جوابا عريدي أو كلته مركز هذا تكنو كلته وحاو عبسنا نفسدنا warbixino dheeraad oo ku saabsan sanad gurada koowaad ee dowladda Soomaaliya iyo warbixino kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com oo mobilkaaga aad ka booqan karto bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta Mareykanka ayaa sheegay in uu 100 ka tirsan ciidamada taabacsan dowladda Suuriya uu ku dilay bariga wadankaasi taasi oo argudasho u ahayd wax lagu tilmaamay daandaansiga ka dhanka ah mucaaradka uu Mareykanku taageero Suuriya oo ka carootay weerarka waxay ku tilmaantay xadgudub kale oo lagu taageerayo argagixisada koonfurta fogna duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dowladda oo lagu qaaday bariga Quuta waxa la sheegay in lagu dilay 25 qof maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa xaqiijisay in ay baarayso dambiyo la sheegay in la galay xilligii ay dowladda Philippines dagaalka droogada ay waday madaxweyne Duterte ayaa lagu eedeeyay inuu amray dhimashada kumanaan qof oo looga shakiyay afayeenkiisa sawaa uu beeniyay wararkaasi Jarmalkana xisbiga hogaamiye Angela Merkel ayaa ogolaaday in dowlad isbahaysi ah uu la samaysto xisbiga midigta dhexe ee Social Democrats go'aanka ayaa si dhan loo wada gaaray oo guddiga fulinta ee xisbiga midowga bulshada ee masiixiga ah ay qaateen laakiin qaar ka mid ah xisbigeeda ayaa ku eedeeyay Miss Merkel in wax badan ay siisay xisbigaasi daraasad cusub ayaa muujinaysa in maadada laga helo nooc ka mid ah khudaarta iyo qaybo kale oo cuntada ah ay markaasi door muhiim ah ku leeyihiin faafitaanka cudurka kansarka saynis yahano ayaa ogaaday in kansarka naasaha uu si degdeg ah u faafo marka la isticmaalo geedkan tani waxa ay micnaheedu tahay in haddii wax laga bedelo cuntada qofka bukaanka ah ay kordhinayso fursadiisa inuu badbaado madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa inta ay socdaan tartamada Olombikada ee xilliga qaboobaha waxa uu la kulmi doonaa wafdiga Kuuriyada Waqooyi oo ay ka mid tahay gabar la dhalatay hogaamiyaha wadankaasi balse wasiirka tirsan Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in arrimo muhiim ah aan laga hadli doonin waxay ka hor tartamada Kuuriyada Waqooyi waxa dowladda military ku qabtay Pyongyang madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka oo ku sugan Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in aysan aqbalayn in maamulka Kim Jong Un uu dacayad u adeegsado tartankaasi oo berito Jimcaha furmaya Cusmaan Cabdi Xasan ayaa faahfaahinaya
imaatinka kooxda kuuriyada waqooyi uga qaybgalaysa olombikada qabobaha koonfurta waa astaan weyn. ka soo qaybgalkooda wuxuu suuro galay markii Pyongyang iyo Seoul ay gaareen heshiis taariikhi ah oo tani u gogol xaaray. labada dal ayaa markii ugu horreysay barafka ku wada ciyaaraya ciyaar tijaabo ah oo dhacaysa Axadda. way wada gaardin doonaan xafladda furitaanka Jimcaha. ciyaartoyda barafka ku ciyaara Yom Tae-ok iyo Kim Joo-sik ayay rajo weyn ka qabtaa kuuriyada waqooyi inay bilado u keenaan. awoodda olombiga waxa ay rajo dhab ah gelisay mustaqbalka ifaya ee qof kasta oo ku nool mandiqadda Kuuriya. dalka kale ee sida weyn uga muuqda ciyaarahan waa Ruushka. 169 Ruush ayaa ka qaybgalaya tartanka, kuwaasi oo la fasaxay kadib markii ay guddiga olombikada mamnuuceen baaris kadib. toddobaadkii hore maxkamadda isboortiga ayaa taageertay racfaanka 28 ciyaartoy, balse guddiga olombikada ayaa diiday qaarkood inay ka qayb galaan Pyongyang. ciyaartoyda Ruushka ee la fasaxay waxaa ka dhex jira dareen diidmo. qof kasta oo xiiseeya isboortiga xitaa haddii ay qaar yidhaahdaan ma aadayno way og yihiin dalkii aan ka nimid calanka iyo astaanta. qaar ka mid a ka qaybgalayaasha culays weyn ayay soo mareen si ay ciyaarahan uga qayb galaan, sida Danny Morrison oo Kanada u dhashay. shalal ayaa ku dhacay, lugna wuu ka jabay. noloshayda oo dhan waxaan ku qaatay olombikada waad aadi kartaa sida aniga oo kale wax kasta oo aad la kulanto. Helen Knight oo barafka ku dheesha Maraykanna ah ayaa sheegtay in gabdhaha ciyaaraha fudud ay la kulmaan culays. sanado ayay igu qaadatay inaan fahmo inaan lahaasho u baahanahay. waxaan doonayaa inaan farxo kuna kalsoonaado midabkayga. jirkayga waa jirkayga. tooshka olombikada oo ku dhow halkii loogu talagalay ayaa ciyaartoy kasta ee ku sugan Pyongyang uu rajaynayaa inuu muujiyo awooddiisa tartanka. wali waxaynu ku jirnaa wararkaasi ku saabsan ciyaaraha bal markana go'aan ayaa laga gaarayaa 47 ciyaaryahan oo Ruush ah iyo waliba tababarayaashooda in ay ka qayb gali karaan ciyaaraha Olympics-ka ee maalinta berrito Jimcaha ka furmaya Kuuriyada Koonfureed. waxay sheegeen in si khalad ah ay guddiga Olombikada uga saareen ciyaarahaasi berrito furmaya ee Pyeongchang ka furmaya. kooxdaasi waxaa ku jira baa lidhi 28 ciyaaryahan oo laga mamnuucay ciyaaraha fudud oo dhan abid. ciyaaraha kubadda cagta haddii aynu eegno xagga qaaradan Yurubna dhinaca Spain, Sevilla ayaa markii labaad waxa ay soo gaartay finalka ciyaarta kama dambaysta ee koobka la yiraahdo Copa del Rey, iyagoo oo ka guuleysto kooxda ay isku hayaan ee La Liga ee la yiraahdo Leganes. waxaana ay la ciyaari doonaan kooxda kale ee Valencia ama Barcelona midii soo baxda oo markaasi ku hogaaminaysa 1-0 lugta labaad ee caawa. ciyaarta kama dambaysta ahna waxay dhacaysaa maalinta 21 bisha Abriil ee soo socota. ugu dambeyntiina hawada Jarmalka waxay martigelisay xaflad music ah oo aan horay weligeed loo arkin. diyaarad gaar ah oo ay leedahay laanta cirbixiyanada qaaradda Yurub ayaa qaaday koox fanaaniin ah iyo 20 taageero oo nasiib u yeeshay hawada sare. ayay geysay meel aan cuf jiidasho lahayn. muusig baa loo shiday oo loo daaray, diyaaradana si ku celcelis ah ayay hoos iyo korba ugu kacaysay muddo 90 daqiiqo ah si ay u abuurto xaalad la mid ah midda hawada sare oo meeshaasi ayay ku baashaalayeen. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa boggayaga bbcsomali.com. muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararka aynu ka shaqaynayno maalintii oo dhan iyaguna waxaad ka daalacan kartaan bogga BBC Somali Facebook kuwii ugu dambeeyey. ha hilmaami waxaad sidoo kale aniga iyo asxaabtaba aad nagula soo xiriiri kartaan ciwaanka Twitterka ee @BBC Somali. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. ciddii uu sheegay barnaamijkan mar kale waxa ay ka daawan karaan boggeena bbcsomali.com. inta ka horeysa dhammaantiinba habeen wanaagsan.